السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa daalaan media daawadayaal meel kastoo joogtiin waxaan idin kulan wanaagsan. xubinteen dhacdooyinka la yaabka waxaan ku soo qaadanaynaa dadka derbi-jiifta ee ku nool magaalo ku tala Jarmalka oo loo sameeyay Musqulo nooca gurgurta. nin hore derbi-jiif oo ah ku nool magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka ayaa hindisay in la farsameeyo bas leh musqulo oo loogu talagalay inay adeegsadaan dadka derbi-jiifka ee ku nool magaalada si aan lahayn guryaha. shalay ayuu shaqo bilaabay baskaasi oo loogu magac daray Dutch bus iyadoo loogu talagalay inay isku nadiifiyaan ama ku xaajugutaan dadka aan guryaha lahayn ee derbi-jiifta ah. shirkad basaska ka shaqeysa oo ku taala magaalada Hamburg ayaa dib u dhistay baskaasi gurgura oo leh musqulo nooca shaawarka kuwa lagu xaajuguto fadhiga kaloo musqulahaasi laga helayaa dhar cusub oo loogu talagalay inay dadka derbi-jiifta ku dhar bedeshaan. ninka hindisay in derbi-jiifta ay helaan bas nooca musqulaha gurgura wuxuu tilmaamay inuu ahaan jiray derbi-jiif isla markaana uu isticmaali jiray musqulaha ku yaala basteejooyinka tareenada iyo shaawarada goobaha lagu dabaasho ee dadweynaha. waxa uu ninkaasi ku biiray ama ku soo biiray dhowr ururo aan faa'iido doon ahayn oo lagu magacaabo go banyo si ay lacag u ururiyaan baska Dutch bus ee loogu talagalay in loogu adeego dadka aan guryaha lahayn ee derbi-jiifta ah. qarashka la ururiyay ilaa haatan ayaa la sheegay inuu ku filnaan karo maalgelinta muddo 6 bilood ah howlgalka baska loogu talagalay derbi-jiifta. ururka go banyo waxay haatan qorsheynayaan inay maalgelin kale oo dheeraad ah helaan si baska uu noqdo mid nadiif ah oo shaqeynaya. baska Dutch bus oo loogu talagalay derbi-jiifta ku nool magaalada Hamburg waxa uu leeyahay 3 qololka lagu qabaysto oo mid kasta leeyahay shower, musqulo lagu xaajuguto iyo mid ay yeelaan alaabaha nadaafadda. waxaa kaloo shaqaalaha baskaas sheegeen inay xitaa dadka derbi-jiifta siin doonaan dhar cusub oo ay xirtaan. baska u qaaska derbi-jiifta ku nool magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka waxaa kaloo leeyahay nidaamka biyaha, 2 booyadaha biyaha lagu keediyo oo qaadi kara in ka badan 1,000 litir oo ah biyaha nadiifka ah kuwa la isticmaalay. maamulka magaalada Hamburg ayaana la sheegay inay bixin doonaan qarashka biyaha laga isticmaalo amaba ay isticmaalaan derbi-jiifta ku xaajuguta baskaasi. baska lagu magacaabo Dutch bus waxaa la sheegay in uu shaqeyn doono 4 maalmood isbuuciiba iyadoo la dhigi doono 3 goobood oo ku yaala gudaha magaalada Hamburg. waxa uu baskaasi muddo 5 saacadood joogi doonaa goob kasta iyadoo 30 qof loogu talagalay maalin kasta inay ka faa'iideystaan musqulaha qabayska ee lacag la'aanta ah. koox darawalo isxilqaamay oo volunteer ah ayaa kaxayn doona basaska isla markaana bixin doona taageerada shaqo ee derbi-jiifta isticmaala musqulaha baska gurgura. si kastaba haatee ugu yaraan 2,000 oo qof oo derbi-jiif ayaa ku nool magaalada Hamburg balse qooradu waxay sheegeen in tiradaasi ku nool derbiyada magaalada Hamburg ay ka sareyso tirada haatan la sheegay. daawadayaal waxaad u maleysaa derbi-jiiftaas ku nool magaalada Hamburg iyo magaalooyin kaleba inay kana sii badan yihiin derbi-jiifta Soomaalida ee ku dhibaataysan ama ku dacdaraysan magaalooyinka waaweyn sida magaalada Musqulo oo aad arkaysa in ciyaal fara badan ama dad waaweyn oo iyagu derbi-jiif isla markaana isticmaalo waxyaabaha daraagiska sida koolada iyo dhuqaal isla markaana aysan haysan meel ay gabaad ka galaan oo ay seexdaan derbiyada goobaha ganacsiga gaar ahaan xamarweyne bakaaraha goobo kale. daawadayaal xubinteen warka waa naginta waxaad kala socoteen daalaan media.